maamulka ee waxay ahaayeen kuwa la nool turanturooyin joogto ah ammaanka iyo adeegga bulshada way hooseeyeen askartuna si aan kala sooc lahayn ayay dadka u xiri jireen maadaama aanay jirin cid dhanka maamulka dawladda ku matasha Soomaalida hanase mar buu ku kacay waa tan kicisay Yuusuf Xasan wariye hore ahaa oo indhihiisa ku arkay aafada haysata dadka Soomaaliyeed arinta aadka ii dhaqaajisay oo ka danqaday maalin aan qada halkan u imid restaurant magaalada kamid ah Islii anagoo fadhinay askar noogu soo galeen ayagoo caraysan oo xoog ku socda ayna weydiisteen waraaqaha aqoonsiga ID-ga kipandega loo yaqaan anigu ma filanayna ninka askariga inuu ku soo xadgudbo dad rayd ah oo hotel sharciyeysan fadhiya oo wax ka cunaya inay sidaas u soo farageliyaan naxdin weyn bay igu noqotay waan isjiijidnay waan isku dhawaaqnay 6 qof oo Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa dibadda u taagneed oo xarka sidii ariga kale ugu xiray maalintaasaan anigu go'aansaday inaan u baahanahay inaan dagaal galno xuquuqdeena aan u dagaalano xaqeena aan soo ceshano qaybna aan ka qaadano siyaasadda deegaanka siyaasadda magaalo madaxda dalka iyo siyaasadda dalka guud ahaanba runtii ninka la yiraahdo Yuusuf Xasan xildhibaanka waxaan arkaa inuu yahay shakhsi akhyaar ah nin akhlaaq badan aan kibir iyo isla weyni ku jirin oo ka sare dhaqaalaha leh madaxda iyo ka hoose danyarta ah ay u siman yihiin waxyaabaha sida gaarka ugu amaanaya waxa kamid ah ka qayb qaadashada xorriyadda diinta xorriyadda diintu freedom of religion freedom of expression qofku wuxuu rabaa inuu ku hadli karo diinta in sidoo rabo qofku u practice gareyn karo mushkiladda muskaaga ha ka dilaacdo waa tan ugu xume waxaa nabadii xaafadda Islii carqaladeeyay dhalinyaro Soomaali ah kuwaasoo dhacay dilba u geystay Soomaalida iyadoo cibaadadii iyo dukaameysigii loo bixi waayay kooxo kale oo xaq jir ah ayaa iyana weeraro qaraxyo ah ka fuliyay Islii taasoo sii xumeysay ammaanka qoryaha magaalada xaafadda la soo gali jiray bistoolooyin baana lagu leyn jiray macallimiin qur'aan baa la dilay odayaal iyo ugaasiyaal lagu dilay har iyo habeen waana la dhici jiray suuqaqa wixii ka dhici jiray waa la ogyahay mararka qaarkood waa la gubi jiray iyadoo la raba in la xado mararka qaarkood waa loo soo dhici jiray intaas waardiyaal lagu dilay intaasoo dad baa lagu dilay marka runtii xaqiiqatan isbeddelka ku yimi ama isbeddelka amni ee xaafadan ku yimi waa mid runtii ana cidna ka qarsoonayn saqiir iyo kabiir waa la socdaan culimo iyo caamo waa og yihiin telefoon si kasta oo telefoonka ugu soo baxday habeen ahaan xataa telefoonka ugu qaalisan adoo wata cid ku soo fiirsan ma laha amnigana waa amni laga shaqeeyay ganacsiguna saan muuna u badnayn hadda dukaamadu waxay marayaan moolasha haddaad fiirisid waa 72 mool 80 bay hadda ku sii dhow yihiin maalin kastana mool cusub baa la furaa markii loo furana waa la buuxiyay shacabku ay buuxiyeen ganacsigu saas isugu xiriyay anigu waxaan kamid ahaa Madiina Mall dhinacyada dadkii wax ka asaasay baan kamid ahaa guriga ugu horeeyay meesha ka dhisnay wuxuu ahaa guriga Islii Mall ninkii dhisay baan ahaa aagaasi waagi hore waxay ahayd meel lama galaan ah oo qofka waa la marjin jiray intii gacanta suxulka ay ku soo xidhaan alwaax waa qofka lagu qabanay markaas qofku sakaraad noqonaya qaar baa ku dhiman jirayba markaas wuxuu hayo qofku yani naftiisa ku furan jiray maantana waa iftiin habeenkii saqdhaxaad maraysa waa safe alxamdulilah ilaahay fadligiisa weeye uma dadaalkii ninka walaalkeena iyo ganacsatadii oo dadkii dhistay oo waad aragtay hadda jeedkaas cimaaraadka iyo bildhinada iyo hoteelada iyo waxyaabaha ka taagan waad aragtay xaafadda nabadgelyadeedu ma fiicneen niman dadka ka dhashay oo xumba nagu kacay oo la yiraahdo super power masaajidka subaxdii lagumana tukan jirin oo laga cabsi qabay inay aad ku kala hado nimankaasoo mindiyaha haysta albaabka ku fariisan waxaa soo dhammeeyay mushkilada kalaba ayaa waxay asalkoodu ahaayeen matalaad la'aan sababtu waxay ahayd in xaafadda Islii aysan haysan cid u hadasha oo gaarsiisa baahideeda dawladda Yuusuf Xasan Cabdi oo ah nin Soomaali ah ayaa u istaagay inuu ka tartamo degmada Kaamakunji oo xaafadda Islii ay ka tirsan tahay ee Soomaalidu ay degto taariikhda markii ugu horeysay filan waabaysay dad badan ku noqotay waxa lagu seexdaa nabadgelyo waxa sabab u ah xildhibaanka yaga Yuusuf Xasan baa sabab u ah in nabadgelyo la helo in nadaafad la helo in kalsooni la helo waxa uu sababa xildhibaanka
waayo wuxuu keenay askar lagu kalsoon yahay annana haddaan nahay culimmadii iyo ahlulmasjidkii iyo masaajidda dadkii joogay runtii waa ka ducaynaynaa masaajidda amnigan ilaahay inuu noo xoojiyo mudane maxay ahayde yuusuf xasanna runtii waa u ducaynaynaa hawsha uu qabtay ganacsiga waxaa la soo darsay cabsi iyadoo dukaamaysigu oo hoos u dhacay taasoo soomaalida ka hor istaagtay inay ku dhiiradaan maalgashi mug leh oo ay ku sameeyaan xaafadda maxaa yeelay badqab amni kama helin maamulkii dowladda ee xilligaasi waddamada badan oo dagaalu ka dhacay baan anigu ka soo shaqeeyey marka waxaan isleeyahay meeshan dagaalna kama dhicin jidadkeediina sidan bay u baaba'san yihiin dugsiyadeedii sidaasay u baaba'san yihiin maamulka xaafadda sidaasuu baaba'san yahay marka dib waxaan ugu noqday sidii aan ugu howlgeli lahaa isbeddel inuu ka dhaco xaggaasi xaafadda waddooyinkeedii waxay noqdeen boholo iyo biyomareen waxaa mararka qaarkood dhici jirtay in biyo ay ku soo rogmadaan ayna qaadi jireen dadka iyo gawaaridaba jidkan fast avenue oo halbowlaha xaafadda ah jid dhiiqa ah oo mararka qaarkood roobka markuu da'ana daad hataa baabuurta qaada ayuu ahaa gaari gacmeed baa dadka culculus iyo maamooyinka lagu gudbin jiray oo lacag lagaga qaadi jiray maantana waa jid qurux badan oo isku xidha xaafadaha iyo magaalada ganacsiga xaafaddana wax weyn ka beddelay second avenue sidaasoo kale u burbursanaa janawaroyinge sidaasoo u burbursanaa muratina marna dhiiquu ahaa oo jidba ma ahayn marna wuxuu ahaa meel boodhkiisa uu ku dilayo maanta waa jid fiican waxaanan isku xirnay xaafadda ilaa Thika road jidkan highwayga ee Thika taga magaalada toos baa looga soo geli karaa Thika uma baahnid magaalada inaad tagto dib ugu soo noqoto marka isgaarsiinteeda meel kastaba iminka jid ahaan waan hagaajino oo magaalo fiican bay noqotay oo ilaa 30 jid oo muhiima ayaan dhisnay kii ugu dambeeyana uu yahay kan Jam Street ee la yiraahdo Athmani Kipanga oo iminka gacanta lagu hayo si degdega loo wado oo dhawaana noqon doona jidadka ugu fiican xaafadda iyo magaalada Isli